بسم الله الرحمن الرحيم كسود هذا كورسين كمبيوتر ابلكيشن برشاد علمية MS Word 2010 موضوع ما انتو حكوسها بسنية سيدا لو استعمال فونتي تايب سايز كلر اي فونتي ستايل ان فرتا نوع سي لو بدلو بلع سايز كذا حجمي سي لو بدلو كلر كذا iyo font style ka sida bold looga dhigo underline iyo italic sida looga dhigo so caadina qoraalkeeni practice ka equal range so qoraalkana waxaan rabnaa inaan ka bedelno nooca farta u yahay haddii aan rabno inaan ogaano nooca farta ay ku qoran tahay fartaan documentiga hal mar ayaa bedeli karnaa waa dooranaynaa بدلنا انت انا بدلين كور حماني سا هوم تاب ميشان لو يقانو فونتي يا انت بدل انت هذا استعمالنا اللي قبل بدلا او فونت كلر فونت سايز اي wax walba oo fonti ku saabsan soo qoraalkana dooranayna halkaan ayaa waxa ka dooranayna meesha flaata safreena nooca farta isticmaaleen ayaa ka dooranayna far walba hadii aan dul saartid nooca naqane qaab kale mid walba hadii aad dul saartid nooc gooni ah ayaa u sabayso inta badan waxaa la isticmaalaa Times New Roman dooranayna waa nooca farta isticmaal xajmiga hadii aan rabno inaan isticmaalno meeshaan aan ku dhufanayna kili numberka aan rabno inaan isticmaalno number walba numberku wuxuu ku sii weyn yahay 14 16 18 20 oo ka sii weynana so numberiska ugu fiican la isticmaalo waa 12 hadii aad rabtid waxa kale oo ka weynayn kartaa eedan weynta كليك هنا داي كسو يرين كرتا ايدا يرتا كليك هنا سو داي ان كلر كا ديار منينا اوغانو كلر كا فرت ديار waxa ka bedelena eedan oo calaamadeeda hoos yaalo كلر بلارتنا فرينا nooca arno ya ka dhigaysa hada madow noo yahay ana ka dhigtid كلرda isticmaali kartaa cagaar كيدنا استعمال سو إدو هذا محاسب مني فرط وحكي لي تايمز نيو روما حجمه 12 كلر كده حكي لي كيدود هذه أرمو باك جراوند هذا باك جراوند كلر كان عدام واي وفرط أنت إيكو قرنتها بس كلر كدي أرمينا كدينا كلر كله هتيجينا قيبتان كله باك جراوند يجو حرتها كدينا سا باك جراوند نوعه ونغنا حرتها كدينا سا سؤالنا عقارك هذا باك جراوند يجي فرط وكقرينا وعقار فرط النوع عيدا وحواي جديد واي كاس عليقنا فونت سايز iyo font type and color hadii arabnina font style kida bedelno salaam fontigan inaan ka dhigno font waaweyn oo kale bold isticmaalena bs soo dooranayna marka hore qoraalka arabna soo dooranaysa isticmaalaysa b oo ka weynana qoraalkan kale inta badan mawduucyada loo isticmaalaa waxa kale oo sameyn karnaa font style kala isticmaal karnaa kamida inaan dhahno italic fartina jiif ka dhigno waxa kale oo isticmaali karnaa inaan ka dhigno underline fartina hoosgaar inta badan waxyaabaha mawduucyada ama hadallada soo jiidashada leh ayaa loo isticmaalaa styles kan ayaa loo isticmaalaa hadallada soo jiidashada diyaarna inaan ku celino farta nooceeda background-geeda inta badan cadaan waay farta diyaarna madow inaan ka dhigno inta badan madow la isticmaalaa madow ka dhigana so font style ka soo aragno kanoo kala dooranayna intaan font style ka bold qaybtan kale waxa ka dhigaynaa italic qaybtan kale waxa ka dhigaynaa underline font style la yiraahdo so halkaas aynu egtahay korsadeen fontiga si wax looga bedelaa MS Word 2010 Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh